بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaas oo naga daawanaysan halkani waa Cabbaas Madani. Si share gareey muuqaalkan horta marka hore faralka guda si share gareey bushaaraan idii hayaa waxa faahfaahin doona dagaalkii maanta ka dhacay duleedka Cerigabo. dagaal qaraad waa dagaalkii duhradii bilowday ilaa iyo maghribadii soo gaaray. dagaalkaasan update iyo warbixinayday waxa way hadii la kuuriyay rasmi ah baan idin ka siinaya fadlan isi gaarsiiye maanta waxa dagaal xoogan uu ka dhacay duleedka magaalada Cerigabo. ciidanka dhulbahante iyo warsangeli ee halkaas ku sugnaa ayay maanta weerar ku qaadeen jabhadda argagixisada Islaam beesha Isaaq idoorku waa dad yar oo iska caadifiyo moogta shalay magaalada marka ciidamadeeni waxa way xeelad dagaal laga saaray rag waxay isdheen ciidankeeni waa jabay bay isdheen ciidankeeni waa laga awood batay inuu waxa ma hayaan isdheen ciidankeeni bay saaka galinkii hore ciidamay soo abuureen weerar bay soo qaadeen meel la yiraahdo dhul mare oo Cerigabo saaran oo dadka reer Cerigabo way garanayaan ayay weerar ka soo qaadeen saddex jeer. warka xaqiiqada waxa weeye weerarkaasi marka uu bilowday nimankii warsangeli iyo nimankii dhulbahanto halkan midyaha hadii la kuray afaysanaya oo diyaar garoobayo isu soo tabaarushanaya magaalada Cerigabo ee si gacanta lagu dhig lahaa oo wiilal beer ku madow yahay oo aan qoslina ay afka waxa way hadii la kuray ka soo galeen fadalkood baa la cabay agta la mariyay warmeeshaasi isaaqa maanta dhirbaxada ku dhacday u maleen maayo maalmahan iyo toddobaadkan inay ka soo waaqsan doonaan dhammaan saddex goobood iyo saddex waxa way jiho ay ka soo weerareen ciidankeena dhammaan waa la kacay ciidankeena baana ku sugan goor galabta ah oo afartii galabnimo ah ayay soo rogal celiyeen oo gurmad badan oo heleen iyo waxay sahay ciidankeena markale ويسوع كدافي جلنكي هره دهردي وحوي محابيس بلاقي قبتي لبيه طوان محابيسة لمشهود سديد توم بريس نسر كارو نحيري ويكفم كري كوي الله يسطح أفريشان أيان إيدي لمشهود ميت كودو ترب أردت الله يابكنو أو لا شيء نمكن رجع وحوقي نبضان قاري يا قاري لا يكقبصن dhalinyaradii ay soo haligeen way ka yaacayaan markaas kuween hadii la kuuray taayarka markaas waxa weeye magaraas sakaawa ka dhigay sakaawa gaariga iyo qofka xaqooda gaariga u miibsan war gaari waa la helaa waa la iibsadaa nafta inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un waxa wiil yar meesha habar jeclaa oo waxa way habar yoonisa oo waxa way meesha laga cararay oo la walaalayda alla weyda doorta ninka askarteena kiin xaris haana maxabiisa buu qabtay kii beerku mudawana Cabbaas Madani oo kalena waa cibaadayste si toos u cibaadayste weerarkii labaad ay soo qaadeen weerarkii oo ku jabeen afar gaari oo gaadiidkan tiraafiyada ay saaran yihiin dhishikayaal afarta gaariba waa la gubay goobihii lagu gubay waa dhul mare dhammaan goobahaasna ciidamadeena ayaa gacanta ku haya dhul mare waa meel deegaan yar weeye oo mutulaya ka dhisan halkaasi maanta si wanaagsan baa iyada laftigeeda looga habaysto imika waa goor habeen weeye dhulku absolute ateenadii baa la jaray khadmad jiro oo sida lagu helo waa adag tahay qofka in telefoon caadi ahaan loo waco mooyaane qofka ugu horeeyo waa inuu fiqfiliyo tagaa oo halka marka khadka internetka ka soo galaa laakiin wixii fiqfiliyo Cerigabo soo xiga khadka internetku already waa xiran yahay absolute waa xiran anyway rankaasi 32 maxaabiisa ayaa sarkaalkan la hadlay iyo xaqiijiyay waxaana balantu way barito in si toos ah warbaahinta loogu soo bandhigo iyagoo magacyadooda iyo qabaylka yihiin sheegaya khasaarahaas maanta gaaray iyo dhimashada maanta galinka hore 8 meeda caawa markii dagaalkii soo gabagabay oo soo dhamaaday dhimashadoodu waa tarab way waa muush way koow iyo laba iyo saddex laba oran karo halkaas joogan maxaabiis laga hayo wasaan idin sheegay waa 32 nin gacanteeda ku jiraan gawaarida ay isha afarta gaarina waa laga gubay meesha ugu sokaysa ay joogan caawa waa Cerigabo weey meel Cerigabo ka sokaysa oo ay joogan ma jirto muuqaalada hordhaca aan baahiyay waa muuqaalada hordhaca
gelinka hore la duubay dabcan laakiin gelinka dambe muuqaaladii ila hadda absolutely maadaama khadka internet ku xun yahay oo taleefanka koolka uu kaliya uu shaqeynayo waxa weeye muuqaalo badan baa la soo bandhigi doonaa waxa la soo bandhigi doonaa rag badan oo qaarkood saraakiil yihiin oo dagaalka ku jiray oo absolutely gacmaha taagay marka gaadiidka ka carareen horta xogtaas weeye meeshaasi absolutely maanta lagu gacan sareeyay inagana ku gacan sareen waana lagu kala adkaaday mar haddii ciidankaagi qayb la laayo qayb maxaabiis ahaan lagu qabto gaadiidkaagi la gubay goobihii lagaala wareegay dee guuli kaa fog absolutely guushu waa inaad goobtina u hadhaa maxaabiisna aad qabsataa jug weyn aad geysataa intiina waanu geysanay intaas horta waa qodob weyn waxaan rabaa inaan mahad celiyo ciidanka waxa weeye haddii la ku dhulbahante iyo warsangeli qaabka maanta ay u dirireen qaabkay waxa weeye haddii la u hilbadirireen waan hambalyeelayaa anuu horaan u sheegay dagaalka haddii warsangeli iyo dhulbahanta u midoobo meeshaas waqti badan inagu qaadan mayso waxaan leeyahay oo halkan rabaa inaan hambalyo dhaho horta Colonel Cabdiwaacid oo maqlayaa waxaan leeyahay waa ka haynaa bohoys laba waa haynaa dubays waa haynaa reer xaaji waan haynaa waxaan rajaynayaa warsangeliga kalena dagaalkeena soo galaan oo aan loo kala harin waxaan kaloo rabaa inaan bogaadiyo nimankii reer Ceerigaabo ee warsangeli ahaa ee dhulbahanta ahaa ee aan xalay halkan fariinta uga diray fariintii automatically waa qaateen waana guulaha maanta aynu gaadhnay waxa sababta u ahaa weey xalay waynu ballantir waa ka soo baxeen aad iyo aad way mahadsantihiin isaaq oo soo naqaanaa ilaa 91kii meeshan absolutely Ceerigaabo markii ugu horeysay aan isku dirna ma aha weligeyn been isku dilaynay weligeyn inay ku cansareenay oo markuu abwaankii weynaay calmada u lahaa hadii meel la daashaa limin iyo darajo keenayo boqol nin baa laga dalacay gaari dabadii kalma iyo kal sheekh buu warnaa meedka reeruhu waayo way doorkii weey dubays baan Umar ogeyn jeex duudumo markii wax weey cilafeen iyo hadii la ku dhulkaas oo dhan agta lagu mariyay iyagoo jabahadii argacada isanabaha 91kii nimankan wanu isnaqaana nimankan absolutely horta nimankan absolutely wanu isnaqaana Ceerigaabodka waa iyaga suukan caariyay way suukan caariyeen maanta sakaw waa shaqeystay dhinaca kale abwaankii weynaay bidda farxgaas waa tuu lahaa tagtaada laba ilaawo oo dadkan ka takoray toddobaad godan baan dhasho leema taag helo mar haddii tacshiir ay dhacdo oo taageeruhu liico mani loo turaanahay aniga inteeda noqotaaye ninkii Cabdullaahi Xamuud iyo nimankii hadii la kuurayay mushatirwa horta nimankaas inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un sakaawa qaatibali nima reer ilo biciidana runtii faradkood bal cabay wali nimankaas aad bay u madeen dawaayo nimanka warkaan ay siinay waa nima reer Ceerigaabooda way garanayaan waxay garanayaan shakhsiyaadkii bay garanayaan magacyadoodu bay garanayaan inaayahoodii bay garanayaan waxa meesha Cabbaas nin aanu garanayno Ceerigaabo aanka ah oo meedkooda yaalo tirabeerway nimanka dagaalka waa ku jabeen waa lagu jabiyay maxaabiista waa laga hayaa dhimashadoodu waxa weey waa muush waa tarab weey goobihii oo dhan inaga la wareegnay de waxa weey absolutely waa caadifad baa u talisay ciyaalka nimankii xalay ciidamada nimanka shalay ka soo baxeen Ceerigaabo u tabaabasheenay waxa weey absolutely markaas ayay waxa isdheen war nimanka awood ma hayaan bas dheen دمع دعر باللفن دعر باللفسي حقيق دعر باللفسي وحربا إن عندما فرين لها الدرو horta marka koox ciidamada guud ahaan meel ka soo joogan waxaan balyeynaya guul iyo gobonimo aad soo heedeen insha Allah taala waan idinku hambalyeynaya waxaan rabaa inaan la hadlo qodob baan u baahanahay inaan isla ogaano si dagaalkan Ceerigaabo inaan ku wajahno oo de waxa weey hadii la guurayay xaqada horta marka koowaad dagaalkan waa in aynu ku galno qabiilkaasna waxa weeye gobolkan iyo deegaankanba reer harti la yiraahdo degan waliba especially warsangeli iyo dhulbahanta waa jar heer kala daaroodo degan oo magaalada ku dadsan laakiin waxaan ka hadlayaa majority ka hadlayaa horta marka koowaad waa in dagaalka aynu qabiil ku galnaa inagoo warsangeli iyo dhulbahanta oo qodob siyaasad meel aan iska dhigno qodobka labaad waxa loo baahan yahay warsangeli iyo dhulbahanta
inay isku laabtaan oo isku noqdaan oo Soomaalidu waxay tiraahdaa furay xanti ma moogana Ceerigaabo markaynu qabanno go'aankeenu Ceerigaabo ku dhaqi lahayn waa inay tahay go'aan Warsangeli iyo Dhulbahante ay heshiis ku yihiin taasna waa qodobadan rabno in qorshe cad laga yeesho koor dagaalka Ceerigaabo aynu ku qabanano taas waa qodobka saddexaad beelaha degan Ceerigaabo ee Warsangeli iyo Dhulbahante leh iyo daaroodka kaleba waa in si gaar ah loo hubeeyaa oo markaas loo abaabulaa si ay qayb uga noqdaan dagaalka looga sifeynayo beesha Isaaq gudaha magaalada Ceerigaabo taasna waa arrin mudan in arintaasi gooniga loo fiiriyo arinta afraad horgalada u adeega jabhadda SNM ee beesha Isaaq cidda uu doono ama beesha uu doono ha ka dhasho waxa loo baahan yahay go'aan si wada jir looga qaato hadii isagoo cadow la socda lagu cibaadeysto inaan cidna dhiigiisa absolutely lagu lahayn qodobka shanaad waa in la xiraa oo la joojiyaa dhammaan gaadiidka waxa weeye hadii la kuureeyo yimaada Burco iyo Ceerigaabo ee koonfur ka yimaada ee qarna ka soo leexda ee soo mara magaalooyinka Yube iyo Jidari wadadaasna way noqoto wada xiran oo hadii waxa weeye dagaalka daacad ka nahay weeye wadada Yube iyo Jidari way inay xirantaa gaari mar kale aanu jirin taasna waa qodob weeye qodobka lixaad dadkeenu way inay yaqiinsadaan waliba hartiga Ceerigaabo ee Warsangeli iyo Dhulbahante iyo daaroodka kaleba way inay yaqiinsadaan oo xaq u arkaan dagaalka Ceerigaabo inuu yahay xaq inuu yahay waxa weeye hadii la ku aanu dulmi yahayn ee uu yahay xaq sababta waxa weeye dagaalka laas aanu waxa ku kala duwan yihiin ma jirto maanta magaalada Isaaq baa haysta magaaladan banaanka ku joognaa maantadeena iyo dadkeeniba marka guryaheena iyo deegaankeena inaynu ku dagaalano aynu qabsano waa xaq waajiba qof kasta oo hartayna inuu qaato oo aamino weeye qodobka toddobaad qofkii ama reerkii ama groupkii isku dayay inuu negotiation kala galo arrimaha Ceerigaabo wada xaajood iyo wada hadal arintaasi in loo aqoonsado cid raalli ka inay tahay in Isaaq ku maamulo Ceerigaabo Isaaqna u dowladeeyo oo ay gudnimada foosho xun ay ku jiraan taasna waa in loo aqoonsado waa qodob muhiim ah qodobka ugu dambeeya ismada dhaqanka Warsangeli iyo Dhulbahante waa inay abaabul galaan oo dagaalkan uu yahay dagaal qabiil oo in magaaladeena iyo deegaankeena aynu ku difaacanano guryaheena aynu dib ugu laabanano waa inuu dagaalka daacad ka noqdaa ismada dhaqanka Warsangeli iyo Dhulbahante qabaayilka la reedi gareeyaa la diyaar garoobaa beelihii lagu laabtaa ciidamada la guraa dagaalka ay safka hor ka jiraan inagoo qabiila oo Warsangeli iyo Dhulbahante qodobkaasna waa muhiim sideeda qodob hadaynu raacno waanu si mid walba si soo qaadano waa huwa si degdeg ah guul weyn uga keenano dagaalka magaalada Ceerigaabo halka waxa maray waa Isaaq cid kama qamo jirto macna guraan gufkoodii macna laangaabkoodii macna waxa weey waxooda rabay wataan marka dagaalka waxa loo baahan yahay in sideeda qodob aan carabaabay inuu sida tahay u wajahno insha Allah taala intaas aan ku soo gabagabeynaya nimankaasina jugta maanta gaadhay kama soo waqsan doonaan xaqiiqo way wallah khayr baan biirjeen